celi ninka faatimiga ahi waad taariikhdu ay u qortay buu ka tegey إن كان ملكي سيذهب ومصر ستسقط فإنني سأموت قرير العين إذا ذهب ملكي إلى يد مسلم بدلا من أن يذهب ليد كافر سليبي حاقد ninka faatimiga ahay wuxuu yidhi boqortooyadaydu inay baaba'do oo masar la qabsado anigu waxaan ku samahay buu leeyahay oo ishaydu ay ku xasilaysaa inay nin muslima gacantii gasho halkay nin gaaloo kiristana gacantiisa geli lahayd buu leeyahay sidii bay ku difaaceen salaadiin iyo adeerkii nimankii masiixiyiinta ahaa dib baa loo celiyey نور الدين زنكي لكن سجى وحوم بيت المقدس نفرطه ولذلك سجى ولي ويركو قادم بمنبر كدستي منبر كبيت المقدس سجى لي اللي حدن كيمياء هيد مركو نينكا استرالي جاي سهيوني جوبي إلا سجى لي اللي حدن كيويا لي ولا جوبي مركز مركي مساجد كلا جوبي بعد النكبة مركي شون لقى صار مسلمين تا نكبة ندم بيس إسرائيل قبضتي أغسطس كوبي لا تكيد ما في ليا أيو جوبي منبر كاسينيكا وقت جاس أيو منبر ودرتين أيو السمايان أو منبر كودقي دونه بيت المقدس مركا وفرطه لكن نور الدين جارد كومسي من أو جاريودي صلاح الدين adeerkii markii uu ninkaasi geeriyooday dib uu soo noqday oo Muusul buu dib ugu soo laabtay Salaaxudiin baa lagaga yimi markaa iyo ciidankii meeshii Masar ahaan jirtay Salaaxudiin waxa yiraahdaan wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo sabir badan oo xakiima oo geesiya oo haddana ciddu ka adkaado mutasaamix jiddan aba yiraahdaan aad iyo aad u naxariis badan oo dadka sii daaya wuxuu isku dayay markaa Salaaxudiin Masar inuu hagaajiyo boqorku boqoraad u jilicsan buu ahaa Masar buu hagaajiyay akhiiran waxa dhacday xataa raciyadii inay aad u soo dhaweeyeen Salaaxudiin nimankii katabada u ahay wuxuu qori jiray xataa sultaankan faatimiga waxa ka mid ahaa alqaadi alfaadil ee macruufka ah ninka ugu caansan ee Salaaxudiin wax ku qorayay raggaasoo dhan mustashaariin buu ka dhigtay way soo dhawaadeen Salaaxudiinna wuxuu aqbalay ninka faatimiga boqortooyadiisa inuu daayo laakiin wadanka inuu islaaxiyo boqorku faatimigii buu ahaa Salaaxudiinna wadankii buu islaaxiyay muddo kadib ayaa ninkii faatimiga hatiisi u timay sana waa geeriyood wax caruura wuxuu ka tagay wiil yar wiilkii yaraa baa la yidhi halla boqoro kaasuu yidhi war la boqori maayo naga tagordo wiilkii yaraa buu Salaaxudiin markaa uu eriyey saasuu ku qabsaday wadankii Masar loo oran jiray faatimiyiintaasi oo dawlad ballaadhan ahayd waayo maghrib alcarabi bay soo qabsadeen in badan oo ka mid ah Masar bay xukumayeen markii dambe Shaam iyo Xijaasna waa ku darsadeen iyo Yamanba markii ay kani dhacay ee uu Salaaxudiin qabsaday waxay noqotay dawladdii ay faatimiyiintu ka talin jireen oo dhan inteedii badnayd inay isaga soo raacdo marka Yaman Xijaas iyo Shaam wixii ka hadhay inta masiixiintu qaadatay mooyaane waxay hoos yimaadeen dawladdii uu ka talinayay Salaaxudiin al-Ayyubi Salaaxudiin muu sheegay nin khaliifo sidii nimankii hore ee wuxuu yidhi khudbadda ha loo akhriyo boqorka jooga suldaanka degan khaliifat almuslimiin ee Baghdad jooga waxaanu aqbalay inuu caalamul islaam oo dhan la mideeyo dagaaluu markaa bilaabay isagu nimankii saliibiyiinta ay isdilayaan dayru balax iyo ghazadan hadda la isku dilayo iyo casqalaan dhulkaasuu dagaalla ka bilaabay 1180kii taariikhda miilaadigii markay maraysay ayaan usquulkii masriga ahaa wuxuu ama ciidan badeedkii masaaridu waxay ka hortageen safiinooyin ama ciidan badeed ay Faranjigu wataan oo meesha caka la yiraahdo la isku haleelay wuu ka guuleystay boqorkii markaa Bayt al-Maqdis ka talinayay baladweynkii afraad la oran jiray ayaa hudna ka dalbaday heshiiskii buu la aqbalay heshiis 2 sanadood in hudna alla galo ayuu qaatay waxa jira
nin Faransiis ah oo René de Chalton la yidhaahdo geesiyadii la socday ciidamadii saliibiyiinta ee yimi ahaa oo guursaday gabadh haysatay Antakiya boqorad ka ahayd buu guursaday deetana boqor buu ka noqday kadibna muslimiintu weerar ku soo qaaday akhiiran ciidamadii muslimiinta nin ka mid ah qabtay 17 sannadood buu Xalab ku xidhnaa waa la soo daayay mar dambe haddana wuxuu yimi Bayt al-Maqdis gabadh kaloo boqoradu haddana guursaday dabeetana Urdun qayb ka mid ah Kark iyo dhulkaasi oo dhan buu qabsaday iyadoo heshiis ay kristanku xaggan muslimiinta kala galeen buu ninkani wuxuu bilaabay inuu qutaac tariiqnimo sameeyo oo muslimiintii Shaam ka tagtay ee xajka qabanaysay ayuu jidgooyo u galay wuxuu laayay iyo wuxuu dhacay iyo wuxuu boobay buu ka dhigay bale waabuu kibrayo wuxuu yidhi Maka iyo Madiina waa inaan qabsadaa xabaasha Nabi Maxamedna waa inaan soo qodaa wuxuu tagay bay yidhaahdaan Gaza iyo meelaha kan buu soo jarjaray wixii ku yaalay geed oo dhan buu soo gooyay dabeetana awr buu ku raray meel cidla abuu ku sameeyey doonyo wuu soo raray baduu keenay dabeetana wuxuu bilaabay inuu duulimaad bilaabo duulimaadadiisaasi waxay soo gaadheen qaybo ka midii ciidaan meeshan la yidhaahdo waa meel xalaayib ka mid ah halkan ay isku haystaan had iyo goor masaarida iyo Suudaanta oo dekad qadiima ah waa dekadihii saxaabadu ay ka tallaabeen baan rajaynayaa markii islaamku uu dhulkan ka gaadhayay ilaa halkaasuu soo qabsaday bal ee ciidamadiisa badhcadan bay soo gaadheen baa la yidhaahdaa Salaaxadiin al-Ayyubi markaa wuxuu ka mashquulay dagaaladii kristanka isku hayeen oo xagga u sii jeeday dib uu soo noqday nimankii muwaxidiinta ahaa wuxuu ka dalbaday oo iyagu badmareenna doonyo lahaan jiray inay rag u soo diraan doonyo iyo farsamooyin u sameeya ninkan buu dagaal ku qaaday kan iyo ciidankiisii bay dib u soo celiyeen maadaama uu ninkani burburiyey ama uu dhacay xujaajtii muslimiinta ee meesha ku socday ballankiina uu buray wuxuu bilaabay inuu argoosi ku sameeyo nimankaasi masiixiyiinta ah ciidamada dad ay leeyihiin oo soo xaj tagiyo waxbuu 2500 soo qabtay aduu haddana kadib heshiis baa lala galay wuu soo daayey ninkani laakiin rabshadii ma daynin markii dambe kan iyo kii haystay Qudus oo isna naagu guursaday ku helay meesha oo aan qoyskii boqortooyada ahayn labadaasi oo laba Faris ahaan jiray baa waxay isku waafaqeen Salaaxadiin kan ba mayno weeraro dabeetana cahdigii wuu buray Salaaxadiinna wuxuu u diyaar garoobay معركة كما دنبيس إنه قالوا ابن كثير في بدايته مركز وحوليه سلاح الدين وطا لبي طبعا كن أو عسكري عيدنا يو حوغا متطوعين يعني متطوعين توادت كان حماس وضدي جهات كن صور راعي لكن معها ضد بران معها إيو فرنشيجي أو ستة إلى هذين سليب السلبوت سليب السلبوت waxay yiraahdaan waa kii Ciise lagu salbiyay saliibkii Ciise lagu salbiyay oo la kala dhaxli jiray wax ka hadhay ayay aathartoodu sheegaysaa marka saliib barakaysan inuu yahay bay u haysteen oo Bayt al-Maqdis iyo meelahan bay keeneen marka nimankan si ay u cadeeyaan inay masiixnimada dhabta u dagaalamayaan saliib salbuutna way soo qaateen iyagoo ama 50 kun ama 360 kun oo askari wata ayaa la ishelay dagaal baa dhexmaray marka hore wuxuu soo qabsaday Salaaxadiin al-Ayyubi Tabariya iyo intii biyaa macaan oo dhan buu ka qabsaday iyaga dhanka bila biyaa abu dajiyay meeshan Xitiin la yiraahdo tuulo yar weeyaan oo hadda kamid ah tuulooyinkan ay haystaan nimanka waa baabaaday imika laakiin wadanka Israa'iil hadda lagu sheegay bay kamid tahay qariyadaas la isku haleelay subax sabtiyeed ربيع الآخر شن مال موضاي كهر سنتي شن بقولية سدحية سديتن كي هجرية ده أو دقما كم بقولية تدبي سديتن كي ميلادية ده دقال أدق باردعي دقال خا وحبة تفاسيشي سجلي منه لكن واحد عن وحكو جبوبي دوري يصدم كنا مصدم كنا إن لقال الله يعيدن كي
صدن كنا محبوس نما الله قبطه almost إن والله قماضي إن محبوس نما الله قبطي محبوس نما قرب ما هي لبدي بقرب وو قبطي بقر كي لورن شري قايد لوسينان وأكي قدس مركا كتلينيي يرينو دشاتلون دشتاين بقرآن دي يقول كتب المسلمين تو كان أرناط أما أرياط بيو قرآن لكن والله ما مقعوا فرنسيسا لبدا بقربة قعنتو كل جاي مركزية وحي كم من نقدين محابستي لقبطي لبدا بقر مركي وقبطي كي مسلمين تلايي وحيد هلا دلو كاس مركو هرو حجاج تلايي وحاصردان إساقا مركي بابو كتخلصي ولا دلي كي كالي وحيد وانكو سيدين لكن بلان قاد إنا تشام وردن كتغيسو أو فرانس كو نغنيسو فرانسيسكا كو نغنيا أبو يري سيدا ولا سيدا يي أدو شام وكغوري فرنسا متجنا قبرص بو دولة كلا كأساستي قبرص يوم لا سويس كدقي أن منكي لورن شري الداوية والإسبتارية داوية إسبتارية دو ونمن برجي هرا انت ماشي ما دين لورن شري حجاج تن كريستان كاتي ما دام ماشي نو شقينا أخيرا الرئيس بدلي أخيرا الرو موبلايسرو أسكريسان نقضي markii dambana noqday mutacaasibiinta ugu adag ee u dagaalama masiixiyiinta labada groupna wuxuu yiri intii ugu badnayd iyagana laga takhaluso labada group oo ay yiraahdeen muslimiintu waxay caan ku ahaayeen inay nabiga caayaan kuwaana wuxuu yiri halalaayo groupada uu ka takhalusay wuxuu markaa gacanta ku dhigay Jolan ama Golan buuraha la yiraahdo agaarkooda dhan Urdun buu qabsaday Tabariyu qabsaday Akku qabtay Akka heshiis la gashay aki waa saddexdii meelooda ay nurin masiixiyiinta ka dhistay boqortooyoy Rohaz Imaaduddin Zanki baa hore u qabtay akana hadda la qabtay Antakiya iyadu waqti badan bay qaadato ahdi al-mamalik Bibris waqtigiisii ayaa iyada dib loo soo celiyay Shaam inteedii badnayd gacantu ku dhigay aka iyaga gaarkeedii dhulka ilaa 4,000 oo maxbuus oo muslimiin lagu hayay buu soo daayay مدن فلسطين انتودي بدنيد بودبو قبطي لبنان قيبتيدان هوسه الصيدا يا بيروت يا كوكان يا نقعنتي سو قالين غزه يا عسقلان يا نابلس يا بيسان يا راضي الغور ودنبا قعنتودا سو قالي waxay yiraahdaan muslimiintu marka ay ka waramayaan meelahaasi gobolada qaarkood xisaar yar buu ku sameeyay iyana sidii bay ku qabteen baytulaxam buu qabtay مدينة الخليل بقى عندي سوق شيء بيت الجبرين بسوق علي يعني مدن فلسطين أردن أنت وبدن كعنت مسلمين تي وقت قاس يسوى ذا قالين أنت المركز كعنت سوق عليين كذب أيو نصارى دو قالاتي إن هالشيء يو حلال قالوا بيت المقدس ويدقالكو حطين بكداعي حطين إلى بقول يشان 16 كيلومتر بيت المقدس وجرته بيت المقدس توس أمو إيمان دوكي كالوردانو يهيستين بو كسوة تخلصي انت كدب بيت المقدس يمي بيت المقدس مركز حسار قليي مال مركز كوتشيرين أيام منجنيقيضا لغو قراعي منجنيقيضا ومدافع دي قديم كيواغا هورا الاستعمال الشري كدبنا وحي أقبلين أمان إن لسيو وهي إسديبان سيديبو بيت المقدس كوغب صدي بيت المقدس iyagu markii ay gacanta ku dhigeen wixii muslimiin joogay way xaaqeen wallaayeen Salahuddin al-Ayyubi markuu gacanta ku dhigay wuxuu ku yiri amaan baan idin siiyay cidii joogaysa ee magaalada deganaanaysa ninku 10 diinaar buu iska bixinayaa jizya ah ilmaha yarna 2 diinaar oo jizya laga bixinayaa qofka dumarana 5 diinaar oo jizya bay bixinaysaa cidii rabta inay tagto xoolihiisana wuu qaadan karaa waanu tagi karaa wadaadkii batriika ahaa qadiiskoodii ugu weynaa xoolihii meesha oo dhan iyo wixii muslimiinta ay ka dhaceen oo dhan intuu qaatay ayuu wuxuu yidhi waxba yaan la taabanin ciidan buu ku daray ilaa iyo madiinatu suur in la geeyo dabeetana wixii ka dambeeyana uu halkaa ka sii baxo taariikhda ragga qoran qayb ka mid oo muslimiinta ka mid waxay yidhaahdaan تسامح صلاح الدين حد أفقوها والرجال أهين إلا سيدا أو ترى بدن بسيدا يبير هذا
laakiin صلاح الدين noocaas uu dhaqmi jiray yuhuuddii ugu horreysay markaa meesha ku soo noqota timaada salaaxudiin bay la socdeen salaaxudiin waxaa la socday ilaa 12 tabiib oo yuhuuda waxaa ka mid ah muusa bnu maymuun waa nin wadaad yahuudiya ilaa hadda kuwa mutacasibiinta israa'iil degan qaybo ka mid waxay ku abtirsadaan inay madhabkii muusa bnu maymuun haystaan muusa bnu maymuunna wuxuu ka tirsanaa dhakhaatiirta uu wato صلاح الدين الأيوبي دخاتيرته عيدن كيسو وطان بو كترسنا ساسو وحو ogolaaday yahuuda qayb ka mid inay markaasi soo degto meesha ay ka doonayaan inay degaan waayo markii hore waa laga nimanka kristanka ahi markii horena way ka baabi'iyeen markii muslimku haystana waa kuwii Umar heshiiska kula galay inaan yahuudina la deganaan karin markii dambe ay xooga ku qabsadeen ma aqbalin yahuudiin ay soo degaan taariikhyahanada reer galbeedku marka ay ka waramayaan salaaxudiin si غayru caadi ay uga waramaan oo ammaan ay ka tira badiyaan wixii uu sameeyay maadaama in badan ilaa xad qaarkood ay sheegtaan warninku hoostu masiixi ka ahaa ama islaan masiixiyada dhashay ama khuraafaad caynkaas ay qaarkood qoraan iyagoo diidan yani ninkan tasaamuxa badan uu sameeyay inuu muslimiyay iyadoo la ogyahay muslim oo yaani cid wax saamaxdaba inaan la arag salaaxudiin al-ayubi magaalada qudus wuxuu ka sameeyay madaaris tira badan waxa kamid ah madrasadii caanka ahayd shaafiiciyadu lahayd madrasatu salaaxiya iyo ribaad suufiya ribaadku waa meel degaana cunana leh oo dadka cubaadi inta iska degaan ku cibaadaystaan xataa masaajid baa looga dhaxdhisaa waa meel cunadii iyo cibaadadii iyo wax walbana ay ka helayaan marka dadka ilaahay u go'ay un ba iska gali jiray nidaam caynkaas ka jiri jiray caalamul islaami oo ribaad la yiraahdo dadkaasi degaan marka ribaad li suufiyana wuu dhisay madrasadana wuu sameeyay madrasadan waxaan iyada gaarka ugu sii tilmaamayaa culamadii waaweynayda muslimiinta ahayd waa meelaha ay ka soo baxeen ama ay asaatidada ka ahaan jireen ragii ninkii koowaad madrasada hayay waxa weeyaan ibn shaddad ninkii la oran jiray qaadi al-qudat ibn shaddad in culamadii muslimiinta casrigiisii uu waaweynaa ka mid ah waxa ka mid ah ibn asakir nimankii madrasada ahayn jiray waxa ka mid ah ibn salah muhaddithka ahaa saaxibu ulum al-hadith madrasadaasi nimankii joogi jiray madrasa qadiima bay ahayd waxa ka mid ah ibn al-jazari صاحب النشر في القراءات العشر محمد بن الجسري أفرت ودادان شجاع أفرت بوا شافعية مركا وحي كمدها إن علماء مدرسة هين شري هي عدد غفير من العلماء أي كصوب حي رجي مدرسة شوقي شرية مع الأسف وأدم به أدي وقت يقولون قصبوا إنه كور رمية أيام مدرسة وحلوا بحيي هديد وحل السيي ninkii ka talinayay boqorkii jarmalka la siiyay oo kiniisad baa loo bedelay caadi dawladda Uthmaaniya qayb ka mid ah ayaa hadiyad loo siiyay qunsulkii Faransiiska ahaa Napoleon الثالث iyadoo loo siiyay iyadoo la ictiraafayo Faransa Almaaniya ma huwa Faransa tukalan tilmaami doonaayo ka Almaaniga ana la siiyay sababta loo siiyayna waxay ahayd meeshan hadda uu qabsaday Putin qiram meeshan la yiraahdo ee Putin qabsaday qiram waa tatarkii muslimiinta aba deganaa dawladda Uthmaaniya bay kamid ahayd qaysarkii baa soo weeraray dabeetana Faransiiska dawladda Uthmaaniya caawiyay si ay isaga difaacaan markaas Ruushia laga difaacay inay qiram qabsato oo kamid ah dawladda Uthmaaniya saadaradeed waa abaalmarin u siiyay isna madrasada halka ku taala si kastaba ha noqoto magaaladii qudus loo oran jiray iyo masaajidkii iyo madaaristii tirada badnaydna laga dhisay saasay salaaxudiin gadaashi aan nimaadno dawladda ayuubiya dhibta ugu weyn ee taariikhda islaamiga siyaasiga soo martay waxa weeyaan waxaan jirin aaliya listimraar الحكم ay madaxdu ku kala wareegto ilaa haddana wali muslimiintu may tatwiirin aaliyadaas khulafaa ar-raashidiin baa u dambeeyay aaliye saxa oo ay ummadi madaxdeeda ku doorato oo lagu wareejiyo wixii ka dambeeyay dhaxaltooyahay dhaxalkana dadku xoolo ma aha laga dhaxla aabahood waa waxaan jirin dhaxaltooyadaas lagu waday dhaxaltooyadaasi waxay keeni jirtay marka caruurta
uu ninkaasi dhalay ama nimanka walaaladii inay isku dilaan yaa meesha qabsanaya. salaaxuddiin nin cibaado badan oo xikmad badan oo sabir badan oo geesiya, waxaan u malaynayaa 24 sannadood buu madax ahaa, 16 sannadood goob dagaal buu ku qaatay baa la yidhaahdaa. 24 sannadood ee uu madaxweyne ahaa. nin aad u xikmad badanoo xakiim u ahaa, culammaduna aad agtiisa ay uga dhowdahay oo maamuusa oo la taliyaalay u yihiin. laakiin raggii ka dambeeyey may noqonin sidiisii. iyagii baa iskhilaafay. dowladdii ayuubiga ahayd oo markaa min xijaas ilaa shaam ilaa masar ahayd way kala googo'day. gobolba nin baa qaatay, waana la isdilay. qudus baynu innagu ka warramaynay markaas. qudus nasiibkiisa waxay ku biirtay alafdal caliy ibnu yuusuf bay gacantiisa gashay. waa ninka ka sameeyey madrasadan caanka ee la yidhaha almadrasa alafdaliya iyo ribaat almaghaariba. meeshan hadda lagu murmo had iyo goor marka bayt almaqdis laga warramaya baabka maghribiga ah, meelahana yuhuudda hadda soo daloolinayaan ama jeexanayaan ka mid ah. ribaat almaghribi waxaa loo siiyey maghaaribta wakhtigaasi ay dagaalada saliibiyiinta ku jireen bay taageero xooggan dowlal muwaxidiin ka heleen oo ku saabsanayd doonyo iyo wax la mid ah. abaalgud loo abaalgudayo in salaaxaddiin ay wax tareen ayuu inankiisana cali ibnu yuusufkani u dhisay, intaas uu ka siiyey. wakhti markii la joogo almelik alafdal waa geeriyooday. walaalkii almelik almucadam ciisa bnu axmed ibnu ayuub ayaa qabsaday. laakiin waxaa qariiba ninka kani wuxuu yidhi qudus uma baahna suur lagu wareejiyo. suurarkii difaaca magaalada wahaa buu dumiyey, isagoo le rag baynuna innagaa difaacayne maxaa suurarkan inoo keenay. iyadoo magaaladii bilaa suur iska tahay ayay mar dambe nimankii soo hungureeyeen. nin kaloo ay walaalahaayeen oo la yidhaahdo alkaamil ibnu axmed ibnu ayuub baa qudus qabsaday haddana. laakiin kaasi wuxuu taariikhda islaamiga ah kaga qoran yahay ceeb. waa ninkii hadiyadda u bixiyey bayt almaqdis mar labaad. magaaladii qudus la odhan jiray nimanay walaaliyiin bay isqabteen iyo ilmaadeerayiin. dabeetana wuxuu is yidhi intaad kuwan isdilaysaan hadday kuwa kiristanka ku soo weeraraan meeshana waa lagaa qaadan. waxa kuu fiican buu istusiyey isagu inaad kiristanka la heshiiso. sidaad kula heshiin kartaana waa inaad bayt almaqdis iyaga siiso, nimankanna markaa ay kuu caawiyaan oo aad iska dhiciso. heshiis buu la galay ah inay qaataan bayt almaqdis, masaajidka oo qura inay muslimiinta u reebaan. inta masaajidku yahay muslimku ha xukuma buu yidhi, laakiin magaaladii qudus la odhan jiray idinku qaata. magaaladaasi waxay gacanta u gashay markaa fredrigii labaad ninkii la odhan jiray. fredriga labaad waa yurub ninkii ilbixiyey, waa ninkii haystay meeshan siqiilayl la yidhaahdo. aan rajaynayana markii dambena inuu dhaxlay almaniya. waa ninkii sameeyey jaamacaadkii ugu horreeyey yurubba laga dhiso, jaamacatu bolonia iyo sarlon. tan dambe waa jaamacaddii koowaad ee tib ee laga dhiso waddanka yurub oo dhan. ta kalena waa jaamacaddii ugu horraysay yurub laga dhiso, waayo yurub jaamacadii aqoon may aqoonin. ninkanoo markaa muslimiinta aqoontoodii raray ayaa labadan jaamacadood sameeyey. calaa kulli xaal fredriga labaad oo meliku furanja ah ayaa qabsaday meeshii qudus la odhan jiray. mar kale ayay bayt almaqdis waxay gacanta nimanka kiristankaa ku jirtay 15 sannadood bay haddana dib uga talinayeen. ninkaasi markuu siiyey kadib taariikhda hijrigii markay maraysay 637kii ayaa almelik naasir daawuud kan mid ay walaalahaayeen kuwii ay sayeen ka mida baa dagaal la soo qaaday. kan baa qabsaday markaa dib buu uga xoreeyey. laakiin muddo yar markuu isna joogay ayay isdileen adeerkii oo ah kii masar haystay, almelik saalix najmadiin ayuub. adeerkii bay isdileenoo masar haystaa. si uu ka masar isaga celiyo ayaa haddana nimankii dib loogu celiyey. la yidhi war masiixiyiinta iska qaata kan, ninkaasuun ila riixa. marka waxaad arkaysaa muslimku mar kasta uu jabay taariikhdiisa markaad dib ugu noqoto
وامروا انتو يسقوا استلي قال هذا وكلا دونتي مسلم وذا جرا او تاريخ قال كحوك رونادي لما هيو مر لباد bay hadana gacanta nimankaasi dib ugu noqotay 641 laakiin markan dambe wax badan gacantooda kuma jirin waxa dib ugu xoreeyay ninkaasi Najmuddin Ayyub ee haystay Masar ayaa dib u xoreeyay casriga Ayyubiinta hadaynu inta ku soo dhaafno Salaaxdiin xoreeyay nin kamid ah dhashiisiyo dib u dhiibay mid kamid ah dhashiisiyo dib u xoreeyay hadana dib u dhiibay nimay walaalahaayeen Najmuddin al-Malik al-Aadil oran jiray dib u xoreeyay waqtigii Ayyubiyiinta intaasay ku dhamaatay waxa bilaabmay casri cusub oo ah al-casri al-mamluki dawla al-Ayyubiyya way dhamaatay dawla mamlukiyya baa bilaabantay Najmuddin Ayyub waxaan filayaa malaa xamalaadkii mid kamid ah ay kristanku soo qaadeen shanaad mise lixaad mid ahaan ayaa isagoo dagaalka ku jira oo Masar agagaarkeeda la isku dilayo ayuu isagu geeriyooday waa islaantii macruufka ah shajaratu dur loo oran jiray markay qarisay dhimashadiisii dabeetana inuu nool yahay ba ka dhigtay sidii ay muslimiintu dagaalka ku galeen sidii baa lagu jabiyay nimankii gaalada markii la jabiyay kadib ayay inaan u dhalay ku wareejisay madaxnimadii islaam fariida bay ahayd nimankan mamaaligta ahi waa dawlo iyana muddo dheer caalamul islaami ka talinayay waa niman asalkoodu waa turkiyana asalkoodu waa khawaarizmiyiin iyo saqaaliba ina waa niman taariikhda islaamiga in badan caan ku ah sababo daraadood kow niman culimana ah culimadana jecel bay ahaan jireen waayo qaab najmu ninkani markii uu groupkan samaysanayay al-Aadil al-Ayyubi markuu groupkan samaysanayay inqilaabadku markay bateen buu dadkan ka shakiyay dhalinyaro dhanka ka keensaday dhalinyarada meel buu ku xareeyay intay 15 jir ka yaryiin diin baa la baraa culimo marka laga dhigo kadib ayaa kulliya askariya la galiya askar baa laga dhigaa marka waxay ahaan jireen niman cilmiga shariicadana si fiican u yaqaana cilmiga ciidankana si wanaagsan u yaqaana taariikhda islaamiga marka la eego marka laga reebo inqilaabadii iyaga dhexdooda ahaa waa niman bari iyo galbeedba muslimka difaacay waa Mongolianiski Tatarki waa nimankii jabiyay xamlaad tiro badan oo ay lahaayeen nimanka masiixiyiintana waa nimankii jabiyay madaaris aad u tiro badan la way dhiseen waxay isugu faani jireen nin waliba inuu madaaris iyo masaajid inuu waqfiyo aad bay kuwaana u sameeyeen wax casrigoodii waxa la yiraahdaa Shaam iyo Masar iyo Xijaas iyo Yaman aad bay u kobacday baa la tilmaamaa ilaa iyo muddo iyaguna maamulayeen muddadii iyagu haysteen kristan ma soo hungureynin Bayt al-Maqdis iyo gaarkeeda bale mamlakadii qura ku harsanayd ee Antakiya ahaydna way ka xoreeyeen sida ogeed bay noqotay caalamul islaami intii loo yaqaanay inay gacantooda ku jirto qaybtaasi oo aanay wax kale ka jirin akhiiran dawladoodu iyaguna waxay duntay dawla al-Uthmaniyya markii ay xoogaysatay Salim al-Awwal ayaa Shaam Salim al-Awwal waa Turkiga madaxdiisii boqor kamida dawladda Turkidu ama dawla al-Uthmaniyya markaanu dhaahno waxay ku jihaysnayd xagga kristanka waxay ku jihaysnayd Yurub iyo sida ay u furan lahayd laakiin iyadoo dagaal xoogan xagga ka wada ayaa xagga niman baatiniyiin ka samaysmeen dawla al-Safawiyya tan ay markaa Iran ku abtirsato waayo Iran sunniyiin bay ahaan jireen shan qarni wixii ka horeeyay waa Khurasan iyo dhulkii culimada muslimiinta ka soo bixi jirtay ayaa ninkaas yimi Safawi Ismaaciiliye dabeetana meeshii uu qabsaday muslimiintii buu gumaaday shiicanimadii buu xoojiyay Iran oo dhan buu qabsaday uu soo socday qayb kamid ah Ciraaq oo dhan buu qabsaday wuxuu ka cabsaday markaa Salim ninkan iyo dhifta wado wuxuu joojiyay dagaaladii Yurubba dib uu soo noqday dabeetana wuxuu isku soo daray caalamul islaami dhamaantii oo dhan rutay inuu qabsado wuxuu qabsaday Masar iyo wixii ay haysteen oo dhan Shaam buu ka bilaabay mamaaligta ciidankii ugu dambeeyay Shaam bay yimaadeen Qansawaan nin la yiraahdo
meel la yidhahda marju daabiq oo suuriya ku taalla la isku galay wuu jabiyey saasay kula wareegeen dowla almamaalik oo dhan dowladdii shiicad ahaydna aad buu u eriyaday ilaa uu dhul badan ka qabsaday waa dowla alcuthmaaniya waqtiyadii ay ugu dhulka weynayd yacni 1.5 milyan square kilometer in ku dhadhowbay dowladdiisu gaadhay baa la yidhaahdaa markii ay soo galeen mamaaligta waxa lagu jabiyey baa la yidhaahdaa farsamo aanay aqoon bay dowla alcuthmaaniya keento madaafiicda lagama aqoon caalamulislaamiga soke marka madaafiic buu la soo galay dabeetana xalab agteeda meelaa buu ku jabiyey cahdiga ay haysteen dowla alcuthmaaniya waayana cahdi cusub marka qudus iyo qadiyadeeda laga warramayo muddo nimankii ka horreeyey mamaaligtii iyo qaybtaasi dimashq waxaan u jeedaa qudus aad bay cahdi almamluuki u kortay madaaristii cilmiga ugu caansan ee la yaqaano taariikh alislaami oo tiro badan bay ka dhiseen waxaa ka mid ah almarkaz madrasadii atankaziya la odhan jiray المدرسة الكريمية المدرسة الأمينية المدرسة اللؤلؤية المدرسة الجاولية انتبا آثارتو دي قارنا ولي سيدي بابا وشقيان آثارتو دي انتبا ولي ويكتاقيين بيت المقدس مركا تكتو دولة العثمانية مركا إنو نمادنية تركيدة ورطاني مركا تركيدة الله يلاهدو ان كن صندو دين كدو بي مسلمين تدفاعية لكن دادكو انت بدان تركي marka la sheego wuxuun bay u fahmaan dawla al-Uthmaniya marka laga soo bilaabo dawla al-Khawarizmiyya turki bay ahayd dawla al-Saljuqiyya turki bay ahayd dawla al-Ghaznawiyya turki bay ahayd dawla al-Tuluniyya turki bay ahayd dawla al-Mamlukiyya turki bay ahayd hatta dawla al-Khashidiyya inta waxay dhahan duwalkaas oo dhami isir turkiya bay ahaayeen waa dadkii ka yimi dawladahan hadda ka go'ay raashanka iyo dhulkaasi dadkii deganaan jiray marka asal ahaan caalamul islaamiga kale xukumayeen ama dhulkii carabtu deganayd waxan bay xukumayeen laakiin asal ahaan waa dad atraaka marka la wada eego marka la isku daro duwalkii turkida ahaa kun sanadood in ku dhadhow bay ka talinayaan caalamul islaami siiba ahlu sunnaha ay difaacayeen manaaqiqaad u ballaadhana waa xukumayeen laga soo bilaabo jayna dacalkeeda ilaa Vienna dacalkeeda inta ka dhaxle dawladda islaamiga ee Turkiga kala nooc ahayd ba ka talisay ilaa akhiran 1924 saddexdii March uu ka takhalusay ninkii la oran jiray Mustafa Kemal Atatürk oo nin cilmaaniya asalkiisana muran ku jiro ma yahuudi ba ma turki baada asalkiisana laguba murmo kunkaas sanadood bay talinayeen haddaynu dib ugu noqonno سليم مركو قبصدي ماشة حجاز يا بيت المقدس يا دول قنودا ميوي صهوس كلين دولة هاسي إن بدن بي دفاعيين دولة دي إسلامي هاي أما قدس وحكو صوت لقى لين قبصدان مر برتغاليين تي الحضارة البرتغالية مركي دنياها ما مراكب طيالاتية مدافع ده وحيسكو ضيان inay madiinana qabsadaan bayt al-maqdisna qabsadaan dagaal badan bay la galeen waa jabiyeen kadib holandiyiintii bay jabiyeen kadib ingiriis bay jabiyeen kadib faransiis bay jabiyeen intaasoo goorba dawla al-Uthmaniya waxay ilaalisay bayt al-maqdis iyo xijaas inaan gaalu soo dhawaan karin laakiin iyadana xanuunkii uu caalamul islaami gali jiray baa galay oo ah khilaafadu istibdaadku markuu galo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya la tanqudunna cura alislaami curwa xukumka islaamka guntimihiisa guntin baa u furi doontaan markaa guntin furtaanba ta ku xigtaa ku dhegi doontaan guntunta ugu horraysa aad tuuri doontaan buu nebigu yidhi waa xukumka guntinta ugu dambaysa idinka lumi doontaana waa salaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni islaamnimada mar kama wada tegaysaane kolba qayb baa la dayacayaa buu nebigu tilmaamaya waana kii nebigu sheegay khilaafadu dee 30 sannadood inay noqonayso 30kuna waa 30kii dee khilaafa raashid ay joogtay guud ahaan
waddankii shaam lo odhan jiray waxaa qabsaday dowla alcuthmaaniya dowla alcuthmaaniya system bay u dhisnayd la yidhaahdo marka hore walaaya wilaayada waxaa ka horreeya mutasarifa baa ka hoosaysa mutasarifiyada waxaa ka hooseeya qadaaga waxaa ka sii hooseeya naaxiya wilaayadu waa gobol dhan oo markaa amiir leh inta ugu badan leh wilaayada markaa laga yimaado gobollada wilaayada ay u qaybsantee waaweyn mutasarifiya baa la yidhaahdaa mutasarifiyadaas ama wilaayadii cuthmaaniyada haddaynu soo qabanno bayt almaqdis waxay hoos tegaysay markii hore taqsiimaadkaasi ay iyagu samaysteen taqsiim ka mida markii dambena mid gaara oo laga xukumo santarka ama dowla alcuthmaaniya boqorku uu toos u xukumo ayaa laga dhigay waxay u sameeyeen wax tiro badan waxaase wakhtigaa bilaabmaya wixii ka dambeeyey dacfigii ay soo gaadhay dowla alcuthmaaniya waayo dowla alcuthmaaniya inta ay haysato dhan waan ka soo boodayaa waayo lama hunguraynin bayt almaqdis in si xoog lagu qabsado waxay ahaydun wixii intaa ka horraysay baa xoogga lagu dayey laakiin markan iyagaa noqday dowladda ugu xoog badan ee dunida ka talisa waxaynu iman karnaa markaa aakhir الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد والقضية الفلسطينية إيو كريستيان زيانيسم كماركو صابحي حقيقة وحويان يهودي بيت المقدس يا فلسطين ما يقبصنين وحا قبصدي حقيقة النبطة كريستيان زيانيسم كريستان يهودوبي waa madhabka brotestanka ah marka isagu muxaadara gaar uu baahan yahay halkaasaan maanta ku joojinaya wassalaamu calaykum waraxmatullah dee midnaan idan xasuusiye sacabkaasi haddamaynan agteenna kuma ammaanayn marka in iskama daysaan baa ka roo muslimku inuu takbiirta iyo inuu ilaahay mahadiyo iyo farsamo kale inuu naqaanaye farsamadaa sacabku inagama tirsana asalaamu calaykum